Bismillahirrahmanirrahiim waxaana wanaagsan dhageystayaal saaxiibayaal meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka falanqaynta caalamka oo xiliyadan oo kale aad ka daawataan warbaahinta Naafic Show waa 9 Maarso 2026 qodobada qaybtan aan idinkuga haynana waxaa kamid ah macluumaadka ku saabsan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuusan ku faraxsanayn magacaabista Mujtaba Khamenei oo ah hogaamiyaha cusub ee ugu sareeya dalka Iran waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa amar buuxa ku bixisay in shaqaalaha dawladda ee aan degdega ahayn iyo qoysaskooda ay ka baxaan Sacuudi Carabiya xuutiyiinta dalka Yemen oo bilaabay dhaqdhaqaaq aan horey loo arag iyo suurtagalnimada la xiriirta dagaal toos ah oo Mareykanka ka dhan ah madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa ugu hambalyeeyay Mujtaba Khamenei in uu noqday hogaamiyaha cusub ee ugu sareeya Iran waxa uu xaqiijiyay taageerada Moscow ee Tehran ku aadan qodobo kale ayaa raaci doona waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa amar ku bixisay in shaqaalaha dawladda ee Mareykanka ay aan degdeg ahayn iyo qoysaskooda ay ka baxaan Sacuudi Carabiya kadib weerarada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Iran ay ku qaadayso dalalka Khaliijka iyadoo lagu sababeeyay walaac amni waaxda arrimaha dibadda ayaa sidoo kale mar kale ku celisay taladeeda ku socota muwaadiniinteeda inay ka fiirsadaan usafrida Sacuudi Carabiya ra'iisi uusi wargeyska The Times of Israel madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa diiday inuu faalo ka bixiyo magacaabista hogaamiyaha cusub ee ugu sareeya Iran Mujtaba Khamenei isagoo si kooban u yiri waxaan arki doonaa waxa dhaca marka xigta sidoo kale waxa uu qoray wargeyska Israa'iiliga ah Trump waxa uu sidoo kale sheegay in go'aankan ku saabsan joojinta dagaalka Iran uu noqon doono go'aan wadajir ah uu la qaadan doono ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu waxaan u maleynayaa in go'aankan uu yahay mid wadajir ah waxaan ka wada hadlaynaa go'aankan waxaana wada qaadan doonaa go'aanka waqtiga ku haboon ayuu yiri madaxweynaha Donald Trump Iran ayaa u adeegsatay gantaalo jiilka cusub oo leh awoodda saxnaanshaha oo ay bartilmaameedyadooda si toos ah u gaari karaan weeraro saacadihii ugu dambeeyay ka dhacay gudaha Israel iyadoo waqtigan qaybo badan oo Tel Aviv ka mid ah ay ku jiraan xaalad digniin sare ah madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa ugu hambalyeeyay Mujtaba Khamenei in uu noqdo hogaamiyaha cusub ee ugu sareeya Iran waxa uu xaqiijiyay taageerada Moscow ee ku aadan dhinaca Tehran fadlan aqbal hambalyadan daacadda ah ee kaaga timid magacaabista hogaamiyaha ugu sareeya ee Jamhuuriyadda Islaamiga Iran ayuu ku yiri Putin fariin lagu daabacay mareegta Kremlinka hogaamiyaha Ruushka ayaa sheegay in uu dib u xaqiijinayo Ruushka taageerada hagar la'aaneed ee Tehran iyo midnimada saaxiibtinimadeena Iran waxa uu ballan qaaday in uu ahaanayo saaxiibka la isku halayn karo xilligan Iran waxa ay wajahaysaa gardarro hubeysan iyo ficilo shaki la'aan waxa ay u baahanaan doontaa geesinimo iyo dadaal weyn waxa aan ku kalsoonahay in si sharaf leh u sii wadi doontaan shaqada aabihiin oo aad u midoobi doontaan dadka dalka Iran si ay uga hortagaan dhibaatada adag oo ayuu ku yiri warbixin ay daabacday Wall Street Journal ayaa sheegay in qiimaha shidaalka uu gaari karo ilaa $215 halkii fuusto haddii marinka Hormuz si degdeg ah loo furo